arooska kabtan ayuub iyo xaaskiisa ifraax ayaa dhaliyey hadalhayn xoogan oo ku saabsan meherka iyo qarashka guud ee ku baxay guud ahaan xalfadii arooska ahayd ee loogu qabtay magaalada Garowe ee caasimadda gobolka Nugaal ee caasimadda maamulka Puntland. haddii aad doonayso in muuqaalkan aad dhamaysato waxaan kaa codsanayaa markii ugu horeysay oo channelkeena aad soo booqatay haddii ay tahay subscribe dheh gambaleelka furo, like, share iyo qaybta commentiga in fikirkaaga aad inoogu reebto hanaga ilaabin. mar kasta iyo meel kasta oo aad joogto channelkeena Jilka Cusub Tube ka dhigo saaxiibka koowaad ee xaqiiqda aad ka xiganayso. haddii horaan aad nala joogtay muuqaalka like dheh si meel fog uu u gaaro, qaybta commentigana fikirkaaga saliimka inoogu reeb. arooska dhowaan ka qabsoomay magaalada Garowe ee gilgilay baraha bulshada ee ay wada aqal galeen kabtan ayuub iyo ifraax sandheere ayaa waxa uu noqday aroos ka duwan aroosyo badan oo aad loogu hadalhayay baraha bulshada. arooskan waxa uu ku soo aaday xilli xasaasi ah, dhaqaalaha ku baxay ayay dadku falanqayn ku bilaabeen. sidoo kale waxaa afka labadii dadku ay yeereen, gaar ahaan habluhu, markii ay ka war heleen in gabadha lagu meheriyey lacag aad u tiro badan, dahab ahaanna loogu meheriyey 300 oo garaam oo dahab ah. 3 garaam ma ahan, 4 garaam ma ahan, 10 garaam ma ahan, 50 iyo 100 ma ahan, waa 300 oo garaam. waana mid ka mid ah iskooradii ugu waaweynaa ee aroos Soomaaliyeed gabar lagu meheriyo. arrintan oo dumar fara badan aad ay u hadalhayaan, TikTok ay iska soo duubayaan oo ay leeyihiin bal xagee loo socdaa, heblaayo haddii 300 oo garaam lagu guursaday, anigu waxaa lagu guursanayaa 500 oo garaam iyo wixii ka badan. sanadkan 2021 waa sanad cajaa'ibkiisa wata. maxaa yeelay sanadkan waxaan maqalnay 120 halaad oo lagu guursaday fanaanadeena abwaanadeena Safiya Tusmo. waxaan maqalnay gabdho kale oo Soomaaliyeed oo iyaguna lagu guursaday meher aad u badan, oo sidoo kale lacag loogu daray, qaar xajka loo ballan qaaday, qaar boos lagu meheriyey oo la leeyahay lacagtaasna qaado, boos hebelna adiga iskale, ama carmal ha noqoto ama gabar ha noqoto, oo baraha bulshada aad ay u qabsatay sheekadan. laakiin kabtan ayuub iyo xaaskiisa ifraax iskoor cusub maadaama ay dhigeen, waxaa sidoo kale sheekada cajiibka ay tahay xalfadii meherka kabtan ayuub iyo ifraax waxa ay noqotay mid ay ka soo wada qayb galeen mucaarad iyo muxaafid. dad Soomaaliya saameyn weyn ku lahaa dowladnimada Soomaaliya iyo dowladihii hore ee Soomaaliya ka soo qayb qaatay ayaa lagu arkay madashii xalfadda ay ka dhaceysay. celcelis ahaan dadku waxay qiyaasayaan in 50,000 oo dollar lacag la-eg ay ku baxday qarashka meherka iyo xalfadii meherka loo qabanayay oo kaliya, iyadoo arooska lacagihiisa gooni ay noqon karaan. kabtan ayuub oo ku nool dalka Jarmalka iyo xaaskiisa oo halkaas kula nool ayaa dhoolatuskii ugu cajiibsanaa sameeyey marka lala barbar dhigo dhammaan qaybaha kala duwan ee baraha bulshada oo aroosyadu aad ay u ruxeen. tani waxa aysan farxad gelin rag badan iyo hablo badan oo iskaabula ah oo iyagu markan ay qasab ku tahay habluhu inay shuruudo cusub keenaan. heblaayo intaas ayaa lagu guursaday, aniguna waa in intaas laga bixiyaa, haddii kale ninkaas isma geyno ayaa meesha imaanaysa. rag fara badan oo iminka guur isku diyaarinayay ayuu xaalka ku xumaanayaa oo waxay ku qasbanaan doonaan in ay markaasi raadiyaan dhaqaale fara badan si ay ugu suura gasho in markaasi ay ugu yaraan awood u yeeshaan in ay ka dhabeeyaan waxyaabaha laga doonayo. 2021 maadaama uu noqday sanad aroosyadii aad iyo aad qaali ay u noqdeen, meherkii lagu tartamayo, jiifkii iyo aroosyadii kaleba iska badaa, waxaa dad badan ay xaaladdu ku noqonaysaa mid cakiran. 2022 maxaa la filan karaa? waa waxa dad badan ay isweydiinayaan. haddaba 2022 guurka ayaa sii qaaliyoobi kara, gabdho fara badan ayaa shuruudo cusub keeni kara. hadda sheekadu waxay maraysaa meher, waxay maraysaa dood la xiriirta sodo oo sodohdeeda guriga ma imaan karto iyo way imaan kartaa iyo waxyaabo la mid ah ay hadda maraysaa.
laakiin xaaladdu halkaa waa ay kasii kordhi kartaa iyadoo dadku ay isha ku wada hayn doonaan dhaqdhaqaaq kasta oo suuragelin kara in markaasi la eego halka ay xaaladdu ku biyo shuban doonto maadaama kabtan ayuub iyo xaaskiisa ifraax iskoorkan ay dhigeen talow yaa jebin doona iskoorkaanse muxuu ka dhigan yahay waa anigu adigu ma kala dhammaanayno marnaba ma kala dhaqaaqayno waxaan ahaanaynaa lamaanayaal isku tolan oo abidkood aan kala dhammaanayn ayay ka dhigan tahay guurka diinta islaamka aad waxay u ammaantay in aad loo raqiisiyo guurka uu ka raqiisan yahayna waa uu ka barako iyo khayr badan yahay laakiin qofka haddii uu awoodo haddana gabadha meherka ay doonto waa uu siin karaa isagoo aan gorgortan ka gelin maxaa yeelay hadda gabdhihii soomaaliyeed ee dhammaantood lagu meheriyey meherada aadka u qaaliga ah iyaga ayaa dalbaday raggii ay guursanayeenna waa ay ka dhabeeyeen oo waa ay ka soo baxeen laakiin sheekooyinka kale ee cajiibka ah ee barbar socda arrintan waxay tahay ii dheh oo waxaa ii dhahdaa heblaayo intaas oo garaam oo dahab ah ayaa lagu meheriyey oo magaalada noo geli laakiin sidaas ma ahaan doono maxaan ku idhaahdaa meherkayga oo meherka si gooni ah ayaa looga soo shirayaa dad arrimahaas hadal hayana waa ay jiraan laakiin waxaan doonaynaa in hambalyo aan u dirno lamaanayaasha iskoorka ugu weyn ee xagga meherka ka dhigay soomaalida dhexdeeda kabtan ayuub iyo ifraax oo labadooduba ku aqalgalay maalmo ka hor dalka Jarmalka meherkooduna waxa uu ka dhacay magaalada Garowe xubno aad u culus oo xildhibaan ah oo wasiir ah oo generaal ah oo saraakiil kale ah ayaa ka soo qayb galay waxaana ka xusi karnaa General Morgan oo si weyn looga yaqaan dhulka Soomaalida oo goobjoog ka ah halkaasi isla markaana khudbad dhinacyo badan taabanaysa jeediyay waad mahadsan tahay daawade haddii ay tahay markii ugu horeysay oo channelkeena jiilka cusub tube aad soo booqatay subscribe dheh gambaleelka furo like share iyo qaybta commentiga in fikirkaaga aad inoogu reebtana waan ka rajeynayaa horaan haddii aad nala joogtay waxaan kaa codsanayaa in muuqaalka like aad dhahdo si meel fog uu u gaaro isla markaana qaybta commentiga fikirkaaga noogu reeb waxaan rajeynayaa sidoo kale inaad sii share gareyn doonto muuqaalka garuubyada WhatsApp iyo Facebook aad ku sii share gareyn doonto si dad fara badan ay aragtidooda uga dhiibtaan ayna xogtan uga bogtaan intaynu dib ugu kulmi doonno muuqaalkan kan xiga waxaan idinka tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo